macdanta loo yaqaano dahabku waa mid ka mid ah ashyaada ugu qaalisan dunida waana ta lagu kala beddesho lacagyowga kala duwan ee ay isticmaalaan waddamada dunidu. waddamada dahabka laga helaa waa waddamo qani ah. Somaliland deegaanka Cirshiida oo magaalada Cerigaba ee xarunta gobolka Sanaag 90 kiiloomitir dhanka waqooyi bari ka xigta waxaa laga helay dahab, halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku qulqulayeen dadka kala duwan ee aqoonta u leh macdanta dahabka. si uu ugu kuurgalo telefishinka caalamiga ee bulsho waxa uu socdaal ku tagay deegaankaasi. daawadayaal waxaan ku suganahay deegaanka Cirshiida oo waqooyi bari kaga beegan magaalada Cerigaba ee xarunta gobolka Sanaag 90 kiiloomitir. deegaankan dhawaan waxa laga helay dahab, isla markaasna waxa yimid dad ajaanib ah iyo dadka deegaanka oo qalab dahabkaasi ku baadhanayay. markaan deegaankan gaadhay waxa la kulmay qaar ka mid ah cuqaasha iyo maayirka degmada Cirshiida. maxamed xuseen dhagacaleen waa maayirka degmada Cirshiida. ugu horreynna waxaan weydiin doonaa bal dahabka iyo qaabka looga helay deegaankan iyo weliba sida loo soo saaro. maayir ku soo dhawo Bulsho TV, waxaad iga warbixisaa goortii dahabka laga helay, sidii loo helay iyo halka laga helay. waxa laga helay dahabka waxa laga helay in muddo hadeer bil laga jooga. haddii laga helay dahab hoose oo meel hoose ku jira maahay, waa wax guudka laga helay dahab badan maahay, waa dahab firid ah. marka kaana waa la isugu yimi oo dadku aad buu isugu yimi. yeelkadeeda nabadgelyo iyo maqaalufa lagu manaafacaadsaday oo lagu gurtay. aad iyo aadna waa loogu maaragtay waxtarna ugu yeeshay. haddana waa laga rajaynayaa kii waaweynaa iyo wixii la mid ahaa. marka dee waxaa la rabaa nabadgelyadeedaanu intaana inay adkaato oo lagu kala nabadgalona waa ugu dadaalay, waana ugu dadaalaynaa. marka muddamada caalamka ama meel kastoo dahab laga helo waa la isku laayaa, khilaafaad baa ka dhaca. ilaa ay hadda ma jiraan wax kaysa oo soo gaaray degmada Cirshiida. intaaba waa nabadgelya lagu jooga oo lagu dhaqan yahay. dadku sidee dahabka ku helayaan? dahabku waxay ku helayaan waa iska dahab yaryar oo dusha saarsaaranoo saacad bay ku gurgurtaan oo maaragtay ay ku helaan. markaas saacaddu mid ay iyagu soo iibsadeen ma mid ay kireysteen si halka ka keenay? adigu qolo kireysatay iyo qolo soo iibsatayba waa leedahay. intee lagu kireeyaa ama intee lagu iibiyaa? lababa waxay kaga kulanto. aad baad mahadsantahay mudane maayir. caaqil axmed dafaac wuxuu ka mid yahay cuqaasha gobolka Sanaag. mudane caaqil, ugu horreyn ku soo dhawo Bulsho TV, sidoo kale waxaad iga warbixisaa bal dahabka laga helay deegaanka Cirshiida ee gobolka Sanaag. aad baad u mahadsan tahay, waa kugu soo dhowahay TV-ga bulshana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. dahabkan waxa weeye Cirshiida togageedan iyo aagan buurahan aynu iminkayna ku dhow. waa dahab dulkaxaadis ahoo weli dahabkii weynaa lama qodin oo kaasu dee wuxuu u baahan yahay shirkado iyo qalab iyo garashuu u baahan yahay. isaga tacab badan baa ka sokeeya, laakiin kan waa arsaaq ilaahay soo kordhiyey oo dadka uu fududeeyey oo laga helo meelaha laagaha iyo say noo sheegeen iyo maaragtay meelaha biyo mareenka ah oo weliba biyo aqooyan meelaha qalalan daadkuun had iyo jeer soo maro. dadku dahabka sidee u helayaan, maxay ku baadhayaan, se ilaa iyo goorma ayuu bilaabmay dahabkan helay? dahabkan iminka muddo horta sahankiisaa lagu jiray ka badan iminka muddadan iminka laysugu yimi meesha. ilaa intii dalka aynu soo gallayba dad baa ku mashquulsanaa dahabka raadintiisa goliskan aynu joogno ee buuraha Somaliland. hase yeeshee qalab baanay haysan wax ay iyo buu ahaa iyo wax